السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعمدا وضيال هالكن وجنال كالحرية نيوس وعد كسر دواتان قضبض وقدور كرر ورركان لدينها النحلقان نسوء اللقوء ذي إن أي قادتي كالنتي أفايين كحركة للشباب في الصومالية أو اللقوء اللي في علة الجرعان أي هرسيدي كرا علاضي يسكهر كان بلشوا أي كود قبل كجدو وزير بيلا أو شاعي دلك اللباد اللي مها أجوب بدن كل الصومالية معمول كبلد حاو أو كهاللي حالة الدجمة عيد مهر لأول لجي هالكاسي hogaamiye la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab oo ka baxsaday xabsi ku yaala dalka Uganda niso oo damiin iyo shuruudo ku sii deysay gudoomiyihii rugta ganacsiga gobolka Banaadir akhbaraadka dibadda wararka janaalka al-xurriya news aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Mareykanka Imaaraadka iyo Israa'iil oo yeeshay kulan sir ah oo looga tashanayo Iran qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janaalka al-xurriya news haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar dambalelkana furo si aad u noqotid qofka koowaad hela wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino kulan hagaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona wararka aan idiin hayna xilligan haatan ku soo dhawaada akhbaraadka aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilownay nisa ayaa lagu eedeeyay in ay qaadatay kaalintii afayeenka xarakada al-shabaab xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa falceliyay warbixin dhawaan ay shaacisay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ay baahisay in uu amiirka al-shabaab xilalka ka qaaday Mahad Karatay iyo Bashiir Qorgaab oo kamid ah hoggaanka al-shabaab Fiqi ayaa tilmaamay in mas'uuliyadda nisa aysan ahayn in ay qabato shaqadii wasaaradda warfaafinta sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u muuqato mid qaadatay kaalintii afayeenka xarakada al-shabaab isla markaana ay soo warinayso sheeko iyo arrimo maamul iyo xilka qaadis la xiriira oo kooxda al-shabaab dhaxdeeda ka dhacay ayuu yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa su'aal geliyay ujeedka laga lahaa warbixintaasi oo lagu daabacay bogga nisa isagoo xusay in qorshaha laga lahaa sidii labadaasi dambiile loogu soo dhaweyn lahaa gudaha magaalada Muqdisho madaafba masawaa indhalaan waxa nisa haleelay maxaa xafiiska laga hogaamiyay nisa ka qaldan maalmahan marka koowaad waxay qaadatay kaalintii afayeenka al-shabaab iyagoo noo soo wariyay sheeko arrimo maamul iyo xilka qaadis la xiriira oo kooxda al-shabaab dhaxdeeda ah ayuu yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi marka xigta laba argagixiso oo 12 sano ee la soo dhaafay madaxda amniyaadka ee dilalka qorsheysan iyo qaraxyada qaabilsan kamid ahaa ayay nisa umada ugu tusaaleynaysa kuwa naxariis badan oo u damqaday shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi warka hay'adda nisa isla xijinayso ma jiro wax macno ah oo uu leeyahay mar haddii qaraxyadii ay sidoodii u sii soconayaan iyadoo waliba labadaasi argagixisay ay burburinayaan xilalkii dambiyada ay ku geysan jireen ee laga xayuubiyay mise waxa laga yaabaa inuu jiro qorshe daahsoon oo labadaasi dambiile wadada loogu sii xaarayo oo la rabo in lagu soo dhaweeyo magaalada Muqdisho iyadoo laga dhigayo in damiirkooda iyo diintooda ay u diideen in ay al-shabaab ka sii mid ahaadaan mararka qaarna ay dhici jirtay in xilal waaweyn loo magacaabo niso ay kaalmeynayaan taliye Fahad mas'uuliyadda nisa ma ahan in wararka wasaaradda warfaafinta ay sheegi jirtay ee ahaa xilka qaadis iyo magacaabis in ay noo soo wariso waajibka waxa uu ka saaran yahay halista xogta cadawga ka hortagideeda iyo sidoo kale weerarada argagixisada ee lidaga ku ah ammaanka dalka iyo dadka marka adigoo daaf qaba aad seexato waxaad soo toosaysaa adigoo indhaha isku ka dhageen ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya wali waxa daawanaysaan wararka janaalka al-xurriya news waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal markana filla Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay ficilada guracaan ee horseedi kara colaado iyo iska horkeen bulsho ay ka wado deegaanada gobolka Gado madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidan oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ka wada qayb ka mid ah gobolka Gado Cabdikariin Xuseen Guuleed oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa marka hore ayaan darro ku tilmaamay in dawladdu abaabul iyo guluf dagaal ay ka samayso degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Gado halkii looga baahnaa awoodda ciidanka ay haysato u abaabusho una diyaariso dhankaasi
iyo la dagaalanka al-shabaab. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in wixii dowladda laga sugayay aysan ahayn tallaabada ay u qaaday in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay haatan ka wado deegaanada maamulka Jubbaland. waxa kale uu sheegay in arrintaasi ay abuureyso colaad hor leh oo iskaga hor yimaadaan bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland. ugu dambeyntii wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay joojiso dhaqdhaqaaqyada ay wado isla markaana wixii khilaaf ah ee ka dhaxeeya hoggaanka maamulka Jubbaland ay ku dhamayso wada hadal. wali waxa daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. markana wasiir Bayle ayaa shaaciyay dalka labaad ee deymaha ugu badan ku leh Soomaaliya. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ka warbixiyay kulan gaar ah oo dalka Djibouti kula soo qaatay safiirka Ruushka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Bayle oo war qoraal soo saaray ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo ku aadan barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya. sidoo kale waxa uu wasiirku shaaciyay in Ruushku uu yahay dalka labaad ee deynta ugu badan ku leh Soomaaliya isla markaana uu kulankoodu ku soo dhamaaday is-afgarad. Djibouti waxaan maanta kula kulmay safiirka dowladda Ruushka ee Soomaaliya waxaanu ka wada hadalnay arrimaha la xiriira deyn cafinta Soomaaliya. Ruushka waa dalka labaad ee deymaha ugu badan ku leh dalka Soomaaliya. wada hadalladeenu waxa uu ku saleysnaa sidii deymahana looga cafin lahaa ayuu yiri Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixinaysa sidii loo cafin lahaa dhammaan deymaha lagu leeyahay Soomaaliya oo muhiim u ah maalgashiga dalkeena. dhawaan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa buuxisay shuruudihii ku xirnaa wajiga afraad ee barnaamijka deyn cafinta taasi oo ay Soomaaliya ku amaantay hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ta. wali waxa daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. maamulka degmada Balad Xaawa ayaa ka hadlay xaalka degmadaasi iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay geysay. maamulka degmada Balad Xaawa ee gobolka Gado ayaa sheegay in ay soo dhaweeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo aad u fara badan kuwaasi oo dowladdu ay geysay degmadaasi. ciidamada oo badankood laga qaaday magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gado ayaa Balad Xaawa waxa ay ku tageen si degdeg ah kadib markii halkaasi shalay uu ka tagay wasiirkii wasaaradda amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. gudoomiyaha degmada Balad Xaawa ee gobolka Gado ee dhanka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdicasiis Xareed ayaa sheegay in ciidamadaasi ay soo dhaweeyeen isla markaana uu qorshahaasi qayb ka ahaa heshiis ay hore ula galeen dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waan soo dhaweynaynaa waxaana dadka u sheegaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay mas'uul ka tahay xuduudaha badda, dhulka iyo sidoo kale cirka. ciidanka dowladda cadow ma ahan waana in la soo dhaweeyaa. dowladda federaalka Soomaaliya heshiis aan la soo galnay ayaan difaacaya oo aan ku shaqeynaa. sidaasi ayuu yiri Cabdicasiis Xareed oo ah gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ee dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya wax faahfaahin kama bixin sababaha ciidamada loogu daabulayo gobolka Gado. ha yeeshee waxa arrintaas soo baxday markii uu xoogeystay khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. hogaamiye la sheegay inuu ka tirsan yahay al-shabaab ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka Uganda sida ay qortay Daily Monitoring ee dalka Uganda. Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud oo horey loogu tuhunsanaa kamid ahaa shiyaha xarakada al-shabaab ayaa la sheegay in uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaaladaasi. ninkan oo ka tirsanaa hogaamiyaasha xarakada al-shabaab ee ku sugan koonfurta Soomaaliya ayaa isaga iyo 5 kale oo Soomaali ah waxa lagu eedeeyay 2014 in ay ku lug lahaayeen weeraro la damacsanaa in lagu qaado xarunta baarlamaanka dalka Uganda iyo meelo kale oo muhiim ah oo ku yaala bartamaha magaalada Kampala ee dalka Uganda. sida ay sheegeen booliska dalka Uganda Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud waxa uu ka baxsaday goobtii uu ku xirnaa 10 maalin ka hor. booliska ayaa ku xiray ninkan goob qarsoodi ah tan iyo markii dib loo qabtay 2016 kadib markii maxkamadda sare oo isaga iyo dadkii la socday ay dambiyo ku weysay. wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in booliska dalka Uganda ay ku daba joogaan ninkaasi iyo raggii la socday ee goobta iskaga baxsaday. waxaana dowladda Uganda ay sheegtay in baadi goob ay ugu jirto sidii ninkaasi mar kale gacanta ciidamada loogu soo celin lahaa. nisa ayaa la sheegay in damiin iyo shuruudo ay ku sii deysay gudoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir.
xog lagu kalsoon yahay oo heshay Al-Xurriya News ayaa sheegaysa in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA in ay damiin ku sii daysay gudoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan oo tuhun la xiriira in uu yahay Al-Shabaab lagu xiray 23 bishii Janaayo ee 2020 ayaa la sii daayay dhowr maalmood ka hor sida aan xogta ku helnay. Axmed Cabdullaahi oo wali baaritaan uu ku socdo ayaa shuruudaha lagu sii daayay waxa ka mid ahaa in uu toddobaad kasta xarunta NISA uu yimaado si loo wareysto. Gudoomiye Axmed Cabdullaahi Xasan iyo ku-xigeenkiisa ayaa la xiray toddobaad kadib markii 16 Janaayo 2020 ay idaacadda VOA sheegtay in kadib markii muddo 3 sano ah oo la isku mari waayay cidda noqonaysa gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka ay ugu dambeyn soo magacaabeen dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Hay'adda NISA ayaa 25 bishii Janaayo sii daysay gudoomiye ku-xigeenkii rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Jimcaale iyadoo la sheegay in aan wax dambiya loo haysan laguna waayay in wax xiriir uu la leeyahay xarakada Al-Shabaab sida ay ogaatay Al-Xurriya News. halkaad warkaasi kala socotaan waa janalka Al-Xurriya News. markana akhbaraadka dibadda, Mareykanka, Imaaraadka iyo Israa'iil ayaa yeeshay kulan sir ah oo looga arinsanayo Iran. Dawladda Mareykanka, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in kulan qarsoodi ah oo ka dhan ah dawladda Iran in ay yeeshaan. Kulanka oo ahaa mid qarsoodi ah ayaa waxaa la sheegay in ay saddexda dawladood uga hadlayeen sidii xal looga gaari lahaa xiisadda u dhaxaysa dawladda Mareykanka iyo Iran si bariga dhexe uu u noqdo aag nabdoon. Saddexda dawladood ayaa isku soo hadal qaaday sidii xiisaddan loogu dhamayn lahaa si nabadgelyo ah, waxayna dawladahan isla afgarteen in lagu dadaalo sidii xiisaddan u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran loogu dhamayn lahaa xaalad nabadgelyo. Dawladda Mareykanka iyo Iran ayaa waxa ka dhaxaysa xurguf siyaasadeed, waxaana jira tilaabooyin laga cabsi qabi karo in dawladda Iran ay qaado si Mareykanka iyo Iran dagaal uu uga dhex qarxo. wadamada caalamka qaarkood ayaa saadaaliyay in dagaal lagu hoobta oo ka dhex dhici karo dawladda Iran iyo sidoo kale dawladda Mareykanka haddii ay isfarasaaraan. gudahaan daawadayaal war naga inta wararka aad kala socoteen janalka Al-Xurriya News. haddii janalka ku cusubtahay fadlan subscribe noo saar.